بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم صاحب يال ميل كستو الدنيا aad ka joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha saaxiib yaal hadii ay tahay markii ugu horeysay aad soo boqoto channel-keenan fadlan subscribe noo saar waana ku mahadsan tahay saaxiib la jaanqaadkaaga kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa waxay lacag gunooyin ay siinaysaa laacibada u soo ciyaaray xayay la soo dhaafay ee Champions League iyo ligahana ku soo qaaday awood iyo xirfad gooniya naadiga Real Madrid ayaa waxay qurayaan guryo lacag iyo gunooyin badan oo ay siinayaan laacibadii sanadkii la soo dhaafay ama xayay laga soo gudbay soo qaaday Champions League iyo ligaha naadiga Real Madrid ayaa moralka u wanaajinaya inay xagaagaan wax badan ay sameeyaan raba ciyaaryahanada iyo dhammaan horweynada naadiga Real Madrid maadaama ay siinayaan lacag guna ah oo xad dhaaf ah hadii ay ku soo raacdo dhagaagana aad la yaabi doontid naadiga Real Madrid waxa lagu yaqaanaa naadiyaasha ciyaaryahanada dhiirigeliya maadaama ay siiyaan lacag gunooyin ah markay koob qaadaan lacag gunooyin ah markay wax weyn ama kulan weyn ay raayaan ama meel heer sare ay gaaraan siiya guryo iyo wax ay ku farxaan ciyaaryahanada Real Madrid naadiga Real Madrid ayaa sanadkii waxa uu soo qaaday Champions League ee ligaha waxaanu ku soo qaaday awood iyo muqooniyay dhammaan kooxaha ka dhisan dhammaan qaaradda Yurub oo dhan waxa uu sameeyay wax aan cidna ay sameyn waxay haystaan 14 koob oo champion ah ya haysta oo kale naadiga kale haysta hatta naadiga u soo dhow wuxuu haystaa 7 oo 7 ay dhaliyeen naadiga Real Madrid waa naadi mar walba shaqo u ah waa naadi mar walba ala saadaalin karin waa naadi mar walba wixii la dhahayo waa jilicsan yihiin waa sanadka waa laga reeynaya haddana kooxihii loo saadaalinayay inay ku guuleystaan Champions League ee Chelsea iyo naadiga lagu magacaabo Manchester City iyo naadiga lagu magacaabo Paris Saint-Germain iyo naadiga lagu magacaabo Liverpool waa afartii naadi ee ugu cadad ama ugu wadabanayd Champions League waxayna ku aadeen nasiib xumadooda naadiga lagu magacaabo Real Madrid oo ah naadiga xirfad u leh naadiga khibrad u leh inay qaadaan ku guuleystaan Champions League maadaama ay haystaan 14 champion naadigan ayaa waxa uu yahay naadi mar walba aan la saadaalin karin mar walba waxa laga filayo wax ka weyn ama wax ka sareeya keena waxa ay dhiirigelinayaan hadeertaana sayid xaaga soo socda ama xaaga hadda bilowday ee horyaalada Yurub Champions League ay kamid yihiin horyaalada ligaha inay ku bulowaan darteed xoog leh hadda waxay hadeertaan wax hogaaminayaan ligaha sanadkan aad iyo aad ayay isku soo dhistay naadiga Real Madrid maadaama ay haystaan ciyaaryahanada xirfadlayaal ah oo wali sii jooga ligaha iyo dhammaan qaaradda Yurub xirfad iyo awood gooni u leh inay muquriyaan kooxaha ka soo jeeda ee naadiga Real Madrid ayaa waxay gunooyin badan ay siinaysaa ciyaaryahanada say u dhiirigeliyaan xaaga soo socda maadaama ay filayaan in xaaga soo socda uu noqon doono xaagii la soo dhaafay ay ku soo guuleysan ligaha iyo Champions League ama heer sare ka gaari doonaan labadaba maadaama ay lagu xifaaltamayo naadiga Real Madrid waxay sanadkii 16 17 naadiga lagu magacaabo Real Madrid ay soo qaatay Champions League waxaana ku soo qaaday awood ma ahan baryo waa awood ay ku soo qaaday naadiga Real Madrid waxa ayna sameysay wax hal naadi ama hal qaran ay sameyn maadaama 3 champion oo isku xigta oo dawaagi bungaabka ma ahande hadeertaan 16 17 18 ay Real Madrid waxay ku soo qaaday awood ayagoo haysta ama adeegsanaya lugleerka kubadda cagta ee lagu magacaabo Cristiano Ronaldo iyo Karim Benzema halka khadka dhexe iyo dhamaan ay ka dhisayeen naadiga Real Madrid waxayna hayeen boqorada dhamaan qaaradda Yurub waana koox mar walba waxa laga filayo wax ka sareysa keenta naadiga Real Madrid ayaa laga arkaa naadiga Real Madrid ayaa la saadaalin karay mar walba ay la dhaliyaan naadi ama awood badnaado ama awood yaraado Real Madrid waa naadiga yaqaan markay u baahan yihiin guush waa naadiga yaqaan markay u baahan yihiin inay gool liyaan waa naadiga yaqaan waxa u baahan markay u baahan yihiin inay guuleystaan yaqaana badiya lagana baqo dhamaan qaaradda Yurub oo dhan hadda naadigii ku beegma naadiga lagu magacaabo Real Madrid walwal iyo warbixin ayaa u yaala maadaama naadigan uu yahay naadi aad iyo aad u yaqaan Champions League iyo koob kale uu dheelayba wax badan laga filan karo saaxiib galo waxaan kaloo eegaynaa in laacibin badan ayaa bixi doona isbuucan maadaama suuqa dhamaan qaaradda Yurub oo dhan ay ka dhiman tahay 2 bari
ciyaaryahano badan ayaa la filayaa inay iska bixi doonaan kooxdooda. hadda waxaa lasoo dhejiyey naadiga Real Madrid ciyaaryahano ka bixi doona waana macquul inay ka baxaan laacibka lagu magacaabo Asensio oo aadi doona Arsenal, Ronaldo oo aadi doona Napoli, iyo ciyaaryahano badan oo kamid yihiin iska iyo ciyaaryahano badan oo ka tirsan naadiga Real Madrid inay iska bixi doonaan naadiga lagu magacaabo Real Madrid maadaama ay boos ka haysan. laacibadan waa laacibayaal xirfadlayaal ah, da'yar ah, curdan ah, laakiin waxba kama haystaan, waxba xirfada iyo wax kaleba kama haystaan naadiga Real Madrid. sidaas daraadeed Real Madrid waxay bana iska baxaan maadaama ay boos ka haysan naadiga lagu magacaabo Real Madrid oo haysta xirfad oo haysta laacibayaal xirfadlayaal oo waaweyn oo da'dooda iyo boonadooda uslahayn. xirfadle dhaafay ayay haystaan khadka dhexe, weerarka, difaaca, buurtaha, meel walba way ka dhisan tahay adiga lagu magacaabo Real Madrid ee caadka lagu magacaabo. marka waxaa loo badanay in ciyaaryahano badan ka bixi doonaan. Arsenal waxa aad doona lagu hayaa laacibka lagu magacaabo Asensio, halka naadiga laacibka Manchester United lagu magacaabo Ronaldo oo aad doona halkaas Talyaaniga iyo Napoli. wallahi caadi ma aha, waa qasan tahay. marka waa loo badanay inuu meelaha u doono doono laacibka weynaa ee Cristiano Ronaldo, halka kooxda lagu magacaabo Paris Saint-Germain oo ah koox lacag haysata oo awoodna kula dhamaan qaaradda Yurub, laacibka ugu dhaqaaqaana aana waayinba ayaa waxay u soo bandhigteen madaalaha kooxda Chelsea ee lagu magacaabo N'Golo Kante. war adduunkano ma Chelsea ku tagay N'Golo Kante yeel kartamaysa. waxaan aaminsanahay hal kulan inaysan badan karin Chelsea laacanta laacibka lagu magacaabo N'Golo Kante maadaama uu yahay laacibka mar walba ka xatiya ama ka istiimiya booniga khadka dhexe ee kooxda Chelsea, waana furfuraha, waa boona habeenta, waa boona burburiyaha ee lagu magacaabo N'Golo Kante. waana laacib xirfadle ah oo mar walba u taagan inuu badiyo, mar walba dhiiran, mar walba aan baqayn, mar walba goyn iyo in la jireeyay in la dilo ana ka baqayn laacibka muslimka ah ee N'Golo Kante. marka hubkan ay haystaan Chelsea waxaa rabta kooxda mulqaweynta ee carabta laga leeyahay, inkastoo kooxda Chelsea aysan Mareykan leeyahay aysan yareysan, laakiin kooxda mulqaweynta ah oo Paris Saint-Germain lagu magacaabo wax walba way ka sameyn karaan suuqa kala iibsiga ee dhamaan qaaradda Yurub dhan. waxa haystaan lacag ay haystaan. waxa ognahay in laacibka lagu magacaabo Neymar Jr ay ka soo bixiyeen 222 milyan oo lacagtii abad ugu badneed ciyaaryahan laga bixiyo. marka saaxiibayaal laacibkan N'Golo Kante waxaa loo badinayaa inuu u wareegi doono kooxda lagu magacaabo Paris Saint-Germain maadaama laacibkan uu yahay laacib lacag doon ah, da'dan ay ka timid uusan rabin inuu ku dhamaysto kooxda Chelsea maadaama champion horyaal wax walba ka haysto dhamaan qaaradda Yurub uu sharaf iyo karaamo ku leeyahay maadaama uu soo qaaday koob badan ay ka mid tahay World Cup-kii 2018 dal ka dhacay dalka Ruushia uu la soo qaaday xulkiisa Faransa, Champions League uu qaaday 2021 halka ay qaadeen horyaalada Premier League uu qaaday 16 iyo 17 oo isku xiga. waana laacib aad iyo aad looga